Raysal wasaraha xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre ayaa xaafiiskiisa ku qaabilay xildhiban ka tirsan barlamaanka Finland khabiirna ku ah arrimaha Soomaaliya iyo geeska Afrika kana soo shaqeeyay macadka nabadda dalka Finland. Raysal wasaraha iyo xildhibanka ayaa ka wada hadlay xaaladda Soomaaliya gaar ahaan arrimaha cafinta deymaha, dib u eegista dastuurka iyo hanaanka diiwaangelinta xisbiyada dalka. doorashooyinka la filayo inay dalka ka dhacaan 2020 xildhibanka ayaa hoggaanka dawladda Soomaaliya ku amaanay sida ay uga go'an tahay dib u soo kabashada Soomaaliya. waxa uuna sheegay in dawladda Finland ay ku garab taagan tahay kamira dhalinta himilooyinka ummadda Soomaaliyeed sida hadalka xildhibanku u dhigay.